barnaamijyadeennii aynu uga hadlaynay beelaha ku abtirsada hawiye. barnaamijkeenna maantana waxa aynu uga hadli doonaa beesha la yidhaahda baadacadde. beesha baadacadde waxay u abtirsataa sidan: baadacadde gugundhabe hawiye erer samaale. beesha waxa ay degaan gobollada hiiraan, shabeellada dhexe, shabeellada hoose iyo meelo kale oo ka tirsan dalka soomaaliya. sidoo kale beesha waxa ay aad u degtaa dowlad deegaanka soomaali galbeed ee dalka itoobiya ee la yidhaahdo kililka shanaad. odaga baadicadde ahaa waxa uu dhalay 5 carruur ah oo kala ah 4 wiil iyo sidoo kale gabar. waxa ayna kala yihiin warable tigaale, waadeero tigaale, beydisle tigaale, muumin tigaale iyo sidoo kaleete xabiibo tigaale. beydisle tigaale waxa ay degaan dhulka la yidhaahdo ismaamul goboleedka soomaali itoobiya. waadeero tigaalena waxa ay la degaan gaaljecel. muumin tigaalena waxaa la sheegaa in uusan dhalin wax carruur ah oo wax ka farcamay aysan jirin. xabiibo tigaale iyadana waa hooyaday dhashay gaaljecel. sidaasna gaaljecel waxa ay beesha baadacadde ugu tahay reer abti. warable tigaale oo ah kuwa baadicaddaha ugu badan aalaana dadka ay yidhaahdaan waa baadicadde, balse xaqiiqadu ay tahay in ay yihiin beel ka mid ah baadicaddaha ayaa waxa ay u kala baxaan 10 jifood oo kala ah: jifada la yidhaahda maamiye, subayr, ilaabe, xaamud, ibraahim baadicadde, samaroob, cadowyar, carayahan, quruweyle iyo sidoo kaleete afgaab. beesha waxa ay leedahay madax iyo sidoo kaleete ganacsato caan ah oo dalka soomaaliya iyo dibaddiisaba laga yaqaano. haddaynu qaar ka mid ah dadkii soo maray beeshaasi aynu ka hadalno, waxa ugu horeeya duuliye sare cabdulaahi weydow, allaha u naxariistee. waxaa ku xiga maxamed xasan aadan ceel qode oo isagana ahaa guddoomiyihii USC sannaddii 1998. maxamuud cabdulaahi barre oo loo yaqaano faytaan waxa uu ka mid ahaa bayloodyadii ugu horreeyey soomaaliya ay yeelato. dr muumin cumar axmed isaguna waxa uu ahaa siyaasi, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa guddigii fulinta ee USC ee 9meeyadii. cabdulaahi axmed shire oo loo yaqaana shaxan waxa uu ahaa guddoomiyihii Somali Airlines 8meeyadii. macalin yuusuf macalin cabdi isna waxa uu ahaa guddoomiyihii maxkamadda jalalaqsi. cabdikariim axmed cali waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee USC, sidoo kalena waxa uu wasiir ka soo noqday dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay cabdulaahi yuusuf axmed, allaha u naxariistee. axmed abroone aamin waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay cabdulaahi yuusuf axmed. nuur wabar cabdi isaguna waxa uu xildhibaano ka soo noqday dowladihii isku xigxigay ee laga soo bilaaba dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay cabdulaahi yuusuf. axmed cumar gaagaale waxa uu soo noqday isagana xogayihii arrimaha dibadda ee USC, sidoo kalena waxa uu wasiir ka soo noqday dowladdii TFG-da. dr maxamed axmed jaalle isaguna waxa uu ahaa xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii dowladdii TNG-da. maxamed cusmaan diini waxa uu ahaa xildhibaan intii u dhaxaysay 1956 ilaa 1964. sheekh maxamed cadowyar waxa uu isagana ahaa xildhibaan ka mid ah dowladihii ka horreeyey kacaanka. cumar maxamuud oo loo yaqaano cumar laangare isagana waxa uu ka tirsanaa xildhibaanadii 1968. xasan maxamuud oo loo yaqaano xasan gedisley waxa uu ahaa isagana xildhibaan ka tirsan xildhibaanadii 1964. cumar xaaji oo loo yaqaano cumar dhaashane isna waxa uu ahaa dadka beesha dhexdeeda caanka ka ah, galaangal siyaasadeedna ku lahaa. ugu dambayn dr maxamed cusmaan tiifow oo isagana ah siyaasi ayaa ka dhashay beeshani. daawadayaal, tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.